walaal ma doonaysa allah subxaanahu wa tacaala inuu kaaga filnaado maa hamahu min amri اdunyaa wاlaakhira. wax kasta oo aad ku hamiyeysid ama aada doonaysid oo ku saabsan adduunyadaada, hadday adduunyo tahay iyo hadday aakhiradaada tahayba. haddii aad doonaysid allah subxaanahu wa tacaala inuu kaaga filnaado wax kasta ku saabsan adduunyadaada, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta wanaagsan oo adduunyadaada aada ku haminaysa allah inuu kaaga filnaado, sidoo kale aakhiradaada inuu kaaga filnaado, waxaan ku hayaa duco. haddaad akhrisatid allah subxaanahu wa tacaala uu arin walba oo adduunyadaada iyo aakhiradaada ku saabsan uu kuu suurtogelinaya kaagana filnaanayo, oo allah haddaad tawagashid oo ictimaadid oo allah subxaanahu wa tacaala arrinkaa kaaga filnaanayo. haddaba intaanan ducada ku sheegin walaal, la wadaag walaalahaaga, siina sheergaray muuqaalkan oo la wadaag asxaabtaada. nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi, qofka dhah xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim. 7 jeer dhahaa maalintii, an allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga filnaanayaa wax kasta oo ku saabsan adduunyadiisa iyo aakhiradiisa. wax kasta uu ku haminayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa kaga filnaanaya, isla markaana ka caawinaya. haddaba ducadana waa duca qaaliya, la wadaag walaalaha say u ogaadaan isla markaana ugu dhaqmaan. aad baad u mahadsan tahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.